وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشد القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada barkulkeen Cabdulla Mansuuri. Waxaan deerijinaya dhamaantii beenad caafimaad iyo khayr iyo wanaag aad ku wada sugantiin. Kusoo dhawaada xalqadii sagaalaad ee barnaamijkeeni aniga iyo Qur'aanka. xalqadii ka horeysay waxaan kaga soo hadalnay yani al-huruf al-muqatta'a bil Qur'aan, yani hurufta muqatta'ada ee Qur'aan ku jira sida alif lam mim ha mim iyo hurufta la mid ah inay yihiin huruf Qur'aanku inaga qariyo tafsiirkooda. laakiin insaanka laga rabo yani inuu su'aal iska weydiiyo isla markaana bar uu ku fikiro Qur'aanku yahay yani inuu barayo mafhuum tasawwurna barayo saddeed mafhuumkaas oo ah mafhuum yani lil caalami kullu ama yani dhammaan insaanku uu loo baahay noloshiisa oo dhan inay mafhuumkaas ku jiro ama uu ibnu su'aal noqdo. لذلك waxaan soo sheegnay التقدم ابن السؤال الانسان ابن السؤال وتقدمه يعني السؤال يعني الانسان waxa uu ku horumaraya waxa weeyaan inuu su'aal iska weydiiyo yani wax walba oo noloshiisa ka horimaado caqabad walba oo ka horimaado inuu su'aal iska weydiiyo oo xalkeedu runtii uu raadiyo. لذلك waxaan soo sheegnay yani qolooyinka ama xadaaraadka su'aalaha hortaagan iska jawaabay akhlaaqdooda yani si uu jeeyay ka jawaabay suluugooda yani iyo afkaartooda iyo waxa ku hareeraysan ka jawaaba isla markaana u banbaxay su'aalaha ka jawaabaan waxa haraka yani waa xadaarada hormara isla markaana yani meel sare gaara mid walba oo ka gaabsata isla markaana iska ilaalisa inay su'aalaha ka jawaabto ama ka baqata ama ka hooseysa waa mid kasta oo yani ku dambaysa maxay meel hoose ku dambaysa. haddaba maanta waxaan ka hadli doonaa aayadda labaad oo ah dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. يعني الله سبحانه وتعالى يسوي القرآن كصفاني أما كتاب الله سبحانه وتعالى إنسان يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسود يسوي صفاني أي لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني هو كتاب أنا وحشت يا كوتشرين يعني يعني أنا كشري وكوتشرين إسلام كان هدى للمتقين يعني هنوع للمتقين. يعني معناها كوتش وحمي عند فهم إنه هنوع هي ومحي والمتقين. يعني عند فهم إنه القرآن كان يعني القرآن يعني هنوع هي إسلام كان وجد وناسن هنوع ومحي المتقين. لذلك بقى يعني الله سبحانه وتعالى الرسول في صادر يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصادره يعني مفهوم الهدايه waxa uu ka dhex jiray carabu dhexdooda ka dhex jiray way carabi yani saxaraha ay mari jireen isla markaan in badan bay ay socon jireen lidalka hidaayo waxa u yaqaaneen wax walba oo dariiqooda yani hagaajinaya yani hadduu ku leeyahay maanta hanuuni ama yani hidaayad ii samee waa maxay waa dariiqii saxda igu toosi weeyaan marka waxay fahmeen waxay isfahansanayeen kelmadda hidaaya inay macnaheedu tahay in yani qaradi ujeeda aan lahayd ama yani wax weyn oo qof uu lahaa in lagu jahaynin lagu yani xaqiisa loo jeedinay iyadoo marka mafhuumka yani aaminsan oo yani nolosh yani sida kooban yani runtii mafhuum yani uu haysta yani mafhuum yani alhidaaya ay ilaahay subhanahu wa ta'ala maxay risaalada uu keenay oo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi maxamed uu soo dejiyay يعني وصل ديبي القرآن كان أمرك كتشواب محي الحياة كلها الهداية للحياة كلها يعني نلش أوردن محي هداية صح إسلام كان يعني نلش أدوية إنه وناجين ست آخر أينو محي برارة يوناد يرير يفرح ينقول نورانا مركا مفهومك كوبنا يعني إذا كوبنا بس بدل محون نقول مفهوم الكل مفهوم الحياة كلها أما الهداية للحياة كلها يعني مفهوم كسيدة اسلوب بدل اي ونا اي هرؤسي هيستين با maxay ayaa ka maqnaaday waana runtii ay fahmi kar waayeen lidalik quraanku waxa uu markaa u ka jawaabay su'aashaas oranaysa yani hadaba quraanku inuu hidaayat alhayat kullaha inuu yahay ya fahmi ama ya ka faa'iideysanaya isla markaana fahmaya quraanku inuu yahay hidaayat alhayat kullaha quraanku waxa uu leeyahay lil muttaqin والتقوى محي يعني هو يعني عمل يعني درين أو قفط ودريمي إسلام مثلا أو كعب سنين محي إلهي سبحانه وتعالى وكعب صريب كاسو إلهي سبحانه وتعالى ويعني عب سديسة وكعب صريب إسلام مثلا الرجاء إلهي سبحانه وتعالى وكقبي وفعل وكستو وناسن وصمينية إلهي سبحانه وتعالى مرة وناسن وكمالينية لذلك هذا بس إنه معناها وجانه أو إنه يعني ضد يعني معناها يعني درنيا إنه نقنه waxaa muhiim ah in runtii in badan u fiirsano quraanku sida uu yahay ama sifaadka uu ku sifeeyay maxay dadka mutaqiinta ku sifeeyay ama inaanay yani kelimad taqwa ama yani Allah ka cabsi inaanay kaliya ku koobnayn in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa yani ay u jeesano kaliya aanay ku koobnayn
tusaale fudud aan soo qaadan ama mithaal runtii aad yani u wanaagsan aan soo qaadan runtii aad u xateynay yani waxaan aan ah oo inuu dadgarana gabadhii yani salaadeena tukan jirtay yani soomkana soo jirtay aan cidna yani ka salaad badan aan ka soo badnayn laakiin markii nabi sallallahu alayhi wasallam la weydiiyay uu yiri yani hiya fi naar maxay naarta ay ku gaaraysaa ama ay ku dabaynaysaa markii su'aasha la weydiiyay leesh bay naarta ay u galaysaana ilaahay nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri maxay ha hiya tu'di jaarha jaarkeeda ay maxay ay dhigtaa لذلك يعني علاقة إنسان كتردد حيث أما خلقي كتردد حيث أو حميسة بوحي حميسة محي علاقة إلهي سبحانه وتعالى إلى الله يعني علاقة يعني إساعة علاقتها بالخلق بوحي معي أي ماشي كسرت محي علاقة إلهي سبحانه وتعالى إلى الله هذا بدل واحد موديان إن يعني تقوى وقف كهلي كريو كثرة الركوع والسجود يعني صلاة يعني ركوع أو بدي سجود أو بدي كلي إلى هلي تقوى لكن سداس معه قصار كوبان عن سوق عضنا gabadhii yani salaadeedina ay badnayd soonkeeduna uu badnaa ee nabi sallallahu alayhi wasallam la weydiiyay leeyahay gabadhaasi yani gabadh ahlu janna weeyaan ama gabadha xaalkeeda ka waran markii la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maxay hiya fi naar naarta ay galaysaa markii nabi sallallahu alayhi wasallam la weydiiyay nabi wuxuu yiri hiya tu'di jaarha jaarkeeda ayay dhibtaa lidaalika gabadhaasi may fahmeen macnaha camiiqa ah ee yani maxay diintan ay xambaarsan tahay taasoo ah yani in insaanka suluugiisa iyo dhaqankiisa uu dibad yani uu kula dhaqmayo isaga qeyrkii uu kula dhaqmayo inay la xiriirsan tahay ama ay xiriir weyn la leedahay cilaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la leeyahay lidaalika gabadhaasi waxay wanaajisay cilaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala kala dhaxaysay laakiin waxay xumaysay cilaaqadii khalqiga yani kala dhaxaysay haddaba cilaaqadii khalqiga ee ay xumaysayba waxay ka xaaraantamaysay ama ay xumaysay maxay cilaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay la lahayd lianna maxay يعني ما يفهمين معناه عميق رنتي إلهي سبحانه وتعالى وجد أما يعني وصوتي محي التقوى يعني الله كعبسة كاسو أباهن محي تأمل وتدبر يعني إن الله في الصو يعني رنتي تأمل الوصمية إسلام كان إن بدن رنتي لقى فكره لذلك بوحنا لنا هي يعني إنسان هو أما يقف مؤمن كا يعني وح أوليه محي الله بعرفتي أما لبا يعني الكعرفتي بوحك آية بدوح ويان يعني النظر إلى الله والعودة إليه يعني إلهي سبحانه وتعالى إن حديث البعد الأول هو العودة إلى الله إلهي سبحانه وتعالى حديث الله نقرأه قضبت الله بعد وحمي أما الطريق الله بعد الإله ومحي الطريق إلى الله هو الإحسان للخلق يعني إن الإله سبحانه وتعالى حديث أن قالوا إلهي سبحانه وتعالى يعني علاقة أنا إلهي سبحانه وتعالى غير حيث أي حوجنات أي مناقصات أما أفعال صميني أي نقطة أفعال ضبط أو وناس أي نقطة وحي لا كل حديثات محي أما الطريق ذو أي تاي معي إن خلق ده إلهي سبحانه وتعالى وأبور إن نروح إحسان صميني لذلك وداس وحي وناجسي علاقة الله سبحانه وتعالى كلا دحيسي لكن وحي حميزة محي علاقة خلقه كلا دحيسي لذلك بعلاقة خلقه كلا دحيسي حميزة وحي إن بدن صامي كيارتي أو أي جنودي أي كحارتي مسي يعني يا إسلام كان جنودي كحارتي إسلام كان حميزة علاقة الله سبحانه وتعالى كلا دحيسي لذلك وحي إن بدن لو بهاي إن بدن رنتي لبدا علاقة بأي نسخنه وأنا مفهوم كان رنتي ما أنا جنب قال لذلك التقوى هو محي أما مفاهيم تردون إلى نفعنا وحويا كلي إننا إلهي سبحانه وتعالى أفعاش أي نصمين إننا نجناج أما علاقة إلهي سبحانه وتعالى نقدر حس إننا نجناجين وإن كتجي علاقة أي خلق إلى الله هذه نقطة إنسان هذه نقطة حيوان هذه نقطة ديبان هذه نقطة يعني وح الله يقول لكل خلق يعني إن رنتي إن نجناجين علاقة إنسان كذا حيس لذلك بوحن أركنا يعني ضد بدن أو رنتي يعني مسلمين أنا هين أو رنتي أعمال بدن يعني واحد بدن رنتي إنسان وقبطي وحن الديار أن الوطول إمير بدل الوجاريو سيارة كان يعني ترينا ضن يعني نروش ندور يعفض ومحي وحسبي محي عقل إنسان يعني بشر واسني بشر تعرف كل ما إحنا المؤمن نقضي إنه كافر نقضي لكن يعني عدة صمي سيف تنت أي كلا هي فكرة أي كلا هي نيد وسيد أهيد ومد والبر محي لو حسابني لذلك هو مثل إن المهمة فعل والبون سمينا إن لبده بعد بعيد فعل إلى إله سبحانه وتعالى حديث أنه دواينه إسلام كان أي وناجنه ورنت أي بدر كل ذلك أي وناجنه إلى قد خلق جاء إن غير حيسا لذلك بعد يعني تطبق واحد حقوق قبطان أما أفعال شو ذا حقوق قبطان قالوا إن الدنيا أكون معمولا أما مال بدن أي كسبان وإنه واحد حقوق قبل محي يعني كسب الأجر يعني إله سبحانه وتعالى أجر أكيد ضربان رده سنة أي كل اللي أمر عليه عشان إله سبحانه وتعالى كل ديان إسلام كان كاسو كل حد محي التقوى يعني ما أنت طبعا سمفر وسمينا إياه كو يعني علاقة أنا خلق يعني قد حيسبه وناجي إنسان كاس يعني أون حالة إلهي سبحانه وتعالى دفت أنا حقوق بنيه ومع ذلك وحن وناجي علاقة إلهي سبحانه وتعالى يقول حيسو سي ونايسن أو يعني خالص الوجه الله بان أيام قبني أو الرياء يو سمع أنا وحبك كدوني marka in labada aragti aan wax ku eegno oo runtii nolosheena ay qiime inoo yeelato isla markaana cilaaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay cilaaqada khalqiga ay leeyahay labadu ay same noqdo ayaa runtii shay aad iyo aad muhiim ah inaynu fahanana ay loo baahay لذلك waxaan soo gabagabeynaya labada cilaaqo ay runtii ay adkeeno isla markaana ay runtii aynan yeelan mid ka tagin labadaba in isbarbar wado
إذا كلكم من حلقة حكتها دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد